iyadoo hawaha kar qaadashada codbixiyaha ay gashay maalintii saddexaad oo ay si nabad uga socoto 164 goobood oo hoos yimaada deegaanada gobolka Sanaag ayaa waxa magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag si isdaba joog ah u soo gaadhay wafdi kala duwan oo ka kala socda xusbiyada qaranka oo ay hogaaminayaan musharaxiinta ku loolamaya jagada hogaaminta talada dalka 5 sano ee soo socota. shacabka gobolka Sanaag ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay musharaxiinta inkastoo soo dhaweyntaasi aan lagu qiyaasi karin saadaasha guusha kaba dambaysta ee lagu kala caraf qaadayo dhinaca gobolka Sanaag xilli aanay wali la gaarin waqtigii sida rasmiga ah loo bilaabi lahaa ololaha kaambeenka doorashada madaxtooyada Soomaaliland. murashaxiinta saddex xusbi qaran ayaa shacabka reer Sanaag si weyn ugu hirdamaya hanashada qulubta laabahooda si ay u soo jiitaan taageeradooda iyadoo mid waliba uu shacabka gaar ahaantiisa ugu soo bandhigay fakarkooda ku wajahan qorshaha waxqabadka mustaqbalka soo socda. haddaba waa kuwa murashaxiinta saddex xusbi qaran kulmiye Muuse Biixi Cabdi wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo murashaxa xusbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucud injineer Faysal Cali Waraabe oo mid kasta dhankiisa soo bandhigayo waxqabadka uu qaban doono gobolka Sanaag. waxaynu bedelaynaa kulmiye waxaynu dooranaynaa wadani hawsaas maaha waxaynu dooranaynaa isbedelka waxaynu dooranaynaa cadaaladda waxaynu dooranaynaa horumarka waxaynu dooranaynaa ilaalinta hantida qaranka waxaynu dooranaynaa shaqo abuurka waxaynu dooranaynaa nabadgelyada waxaynu dooranaynaa inaynu samayno qaran loo siman yahay oo la wada leeyahay. waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la feejignaado dadka la simo dadku midooba maxaa dadka yaa mideynaya hoggaan baa loo baahay waa ogtiin maanta saddex xusbi baan nahay xusbi waa labada xusbi oo agtiin midna waxa weeye waa kulmiye udub qabsatay midna waxa weeye wadani kulmiye waa wadanidii kulmiye qabsaday. marka waxaan ku bishaareynayaa madaxweyne ku-xigeenka Ucud inuu ka imaanayo gobolada bari oo waliba ka imaanayo gobolka Sanaag oo ka imaanayo marka dalkii waxba ku yeelateen madaxweynaha Sanaag madaxweyne ku-xigeenka soo socda insha Allah taala ee madaxtooyada fariisan doona halkaas uu iman doona anagu madaxweyne ku-xigeenka uu noqon maayo miis iska maran shaqada oo dhan si aan u dhiibinaa arrimaha dibadda iyo arrimaha difaaca maaha inta kale oo dhan isaga mas'uul noqonaya insha Allah taala. 5 sano ee soo socda Sanaag maxaa ugu jira baraarteeda 5 sano dambe shantii hore Sanaag waxa ugu jira nabadayn wadada Ceergaabo isbitaalka iyo biyaha iyo waxbarashada waxa u kala mudnaayeen ugu cusbay wadada Ceergaabo 5 sano dambe wadada Ceergaabo intee badwaas oo kharashka waxyaabo yaraanaya بدل أما سنتكلم عليه كل ما نسمع وهي خارج كيو يقول ما هذا إيه ما كان الجو وحيارها وبعضها كل السنين حوالي هو مرتاح أو خيار بركوا الله يوم الدنيا كسكوا الحيوان يلان الجو شوكته وحكوا بدأت كولاده وبيا وايو ضرب ما واحد يقولون بري ولا جيا وايو الحال كينيا dalku bari uu baahay balaaraya waana oo mare marka biyuhuna waa talabaad waxa weeye xoolaha sidii noloshoodii hadday abaarihi bateen oo soo noqnoqdeen oo labada sano abaarin helayso waxay noqosheenaa xoolaha sidii loo dhigaa sidii hore gabdhaha si ka duwan marka xoolaha biyuhooda loo helo waxa loo abuurayaa caw ee taro way dhaqmayaan iyagoo waxay guraagay ahayd qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa in dhammaystiro isbitaalkan oo halka ugu casrisan ee dalka laga dhisayo. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Area TV, Ceergaabo.